iska horimaadkan dagaal ee ku dhex maray duleedka magaalada Boorama ciidamada booliska iyo kooxo hubeysan ayaa sababay dhimashada hal askari iyo 3 dhaawac oo midkood yahay shacab arintan oo ka dhalatay muran dhul oo muddo ka jiray deegaankaasi u dhow magaalada gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalin Tiimbaro oo warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa faahfaahin ka bixiyay sida khasaaraha dhimashada iyo dhaawac u yimaadeen iyo tallaabada maamul ahaan ay dhacdadan dad u soo qabteen waxa war lagu soo gaaray ciidamada isku urursaday meel magaalada dusheeda ciidamadaas markii hawlgal ciidanku ugu baxay guddiga nabadgelyada iyo ciidankuba ciidankaas wuxuu rasaasay ciidankii dawladda booliiskii bay rasaas la dhaceen laba nin waa dhaawac booliisi ina u dhintay hawlgalkaas uu socday waxa la soo qabtay nin dhaawaca oo nimankii dambiilayaasha ahaa iyo 3 bad qaba afartan operation-kaas lagu soo qabtay operation-kaasu kullay dabada wuxuu ku hayaa dhul iyo waxyaabo caynkaas kadib markii la soo sheegay ciidanka ku baxay khasaaraha dhacayna intaas u noqday hawlgalkaasuna uu socdaa wixii ka soo kordhana waa lagu jiray intii baxsatay dib ayaan idinka soo sheegi doonaa meel cidlaaw aad meesha la isku haysto khasaare kale moogan anagu dhanka kalena xildhibaan Axmed Maxamed Cadoosh oo kamid ah golaha deegaanka ee degmada Boorama ayaa isagu ku eedeeyay dhacdadan mas'uuliyiinta maamulka oo muranka dhulkan waxba ka qaban waayay guud ahaan waynu ducaynaynaa marka hore inta dhaawacantay inta ku dhimatayna waxaan leenahay Allah u naxariisto hawlahana waa hawlo muddo la filayay oo wax weey soo noqnoqday bay ahaayeen waana waxa ka bilowdeen waa muran dhul weey maaha wax kale waana dhacdooyintii wax weey runtii u baahan maamul iyo maareyn in dadku wax weeyaan la kala maamulo oo aanay shacbigu isgaadhin ka gardaran iyo dawladdu isgaadhaan bay ahayd runtii wax weeyaan hawshaas waxa keenay maamul xumada degmada waa muran dhul oo muddo soo socday mudduna hawshan ay soo taagnayd waxana weeyaan kulli mas'uuliyadda cid ka gaban kartaa ma jirto heerkay doontaa taagnaato laakiin wixii dhul waxa ku shaqaleeyay waa dawladda hoose ama golaha deegaanka ee degmada oo maayirku hormudugay gudoomiyaha degmaduna hawshaas hawlaha waxay ka mid tahay aan runtii dambaba sheegayno ba ka mid tahay dadku inay soo gaadhaan aanu cabsidu naga hayso una baahnaan sida ugu dhaqsaha badan leh ugu degdega badan leh aanu uga hawlgalnaa hadii la yiraahdo shaqadana uga gudano waana hawlaha jira waana dhibaatada taale degmada maanta haysata ayuun bayna ka mid tahay hawsha maanta timiday aad iyo aadna waanu uga xunaa runtii golaha deegaankuna si guud iyo si gaarba tacsiinama u dirayaan waana ka xumeynaa hawshaasi waxna weeyaan mas'uuliyadana maamulka ayay dusha u saarayaan waxaad ka mid tahay xubnaha golaha deegaanka meeshan maanta dhimashada iyo dhaawac ka dhacayna waa meel u muuqata magaaladii muddo badanna inuu waxan soo jireen yaad carabka ku dhufatay ka golaha deegaan ahaan maxaad arintan xal uga gaari weydeen maadaama ay yihiin arrimaha khuseeya arinta taladeeda horaan u bixinay in ummaddu runta loo kala sheego oo la maamulo u baahan yihiin dadkan dad maamulo u baahan yihiin maamul xumadana haysatay ka mid tahay manaxa la sameysatan iyo kuwa kale ka badan way dhici doonaan waa arrimaha xanuunka nagu haya waa maamul xumadana haysata waa dhibaatooyinka jira ka mid tahay waana muranka dhulka soo jiitay muddada arrimaha muranka dhulka ee ku soo noqnoqda guud ahaan deegaanada Soomaaliland ayaa intooda badan la sheegaa inay sababaan isku dhacyadooda dhulkii danta guud ahaa oo ka baxay dawladda gacanteeda isla markaasina gacanta u galay dadka shacabka iyo qiimaha iibka dhulka lagu kala iibsado oo meel sare gaadhay taas oo sababta isku dhacyada iyo dilalka ka dhaca deegaanadaasi